السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي سو دواada meel bood afaha dunida naga daawanaysaan channelka daawanaysa waa Nuno Academy. إن شاء الله maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay saaxib muuqaal ay dad badan comment igu soo qoreen oo ina jeclaayeen inaan ka soo hadlo. maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay saaxibayaal sida post loo soo geliyo website-kaaga. saaxibayaal sidaynu ognahay website-ka hadduu blog yahay iyo hadduu WordPress yahay oo aad soo gadatayba waxaad u baahan tahay inaad post soo dhigatid. marka dad badan ayaa macnaha aqoon u lahayn ama aanan fahansanin qaababka kala duwan ee waxa waaye postiga loo soo geliyo waxa waaye website-ka. marka insha Allah saaxibayaal maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida aad u qoran lahayd post cajiib ah aadna u soo dhigan lahayd wadada laga maro meesha laga maro qaabka loo qoro waxyaabaha loo baahan yahay sida sawirka ama feature photo-ga ama cover-ka kore loo saarto waxyaabaha soo dhan insha Allah maanta muuqaalkan ayaan ku hadli doonaa. fadlan aan ku xasuusiyo hada channelka cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan oo like gareey wada fiican baan ku soconaa wax yar baan oo haray inaan waxa waaye kanaalka aan visible kaliya subscribe bisa. fadlan aan ku xasuusiyo in mar kale aad muuqaalka like noo saarto sidoo kale channelka subscribe noo saarto insha Allah soo dhawaada saaxibayaal. marka muuqaalkan ayaan gudagali doonaa saaxibayaal waxaan tagayaa qaybta WordPress-ka waxaana maanta muuqaalkan ka hadlayaa sida macnaha postiga aad u qoran lahayd qaabka aad u ilaalin lahayd insha Allah marka ayadoo practical aan tusiyaa in wadona keena. saaxibayaal waxaad imaanaysaa qaybta WordPress-kaaga saa u jeedid WordPress-ka ayaan imaaday. WordPress-ka marka waxaan u baahanahay inaan password-kayga geliyo oo waxa waaye oo isoo qabto password-kayga gelin kadib waxaan tagayaa meeshii waxa waaye aan postiga ka gelin lahaa login ayaan leeyahay. login markaan ku dhufto WordPress-kayga aan furto sidaynu ognahay hadda waxa ii soo baxay saa u jeedid dashboard-kii maxaa la dhahayay website-kayga. meeshani waa meesha laga maamulo website-kaaga waa meelaha kala duwan ee website-ka laga maamulo waa meesha laga bedelo muuqaalka website-kaaga sidoo kale waa meesha postiyada laga soo geliyo waa meesha page-ka laga soxo waa meesha media laga soxo waa meesha hadii website-kaaga aad wax ku iibinayso product-ka laga soo geliyo waa WordPress kulli aqoon badan baad u leedihiin. marka insha Allah maanta muuqaalkan ka hadlay wuxuu yahay qaabkee ayaad post u soo gelin kartaa waxa waaye website-kaaga. insha Allah marka waxaan rabaa inaan ku tusaaxib qaabka aan post u soo geliyo. marka saaxib xagga marka joogo waxyaabo kala duwan ba xaggan igu qoraysa u jeedid xaggan waa home key xaggan waa site kit xaggan waa chat pack xaggan waa post xaggan waa media. meeshaan u baahanahay marka waxay tahay waa post markaan ku dhufto kadib waxaan leeyahay all posts waxa waa postiyada hore ku sii jiray hadan add new post ayaan ku dhufanaya markaan u baahanahay post inaan soo dhigto add new ayaan ku dhufanaya add new post saa u jeedin wuu wareeganaya marka wuxuu ina geynayaa meeshii postiga aan ku qoran lahaa oo waxa waaye shaashadii aan u baahnaa xaggan ayuu i keenay sida u jeedin marka qaybtan ayuu i keenay qaybtan markuu i keeno xaggan waxa ku qoran add title raaci xaggan waxa ku qoran choose block tan hadaan ku dhufto sida u jeedid waxyaabaha uu ka bilaabanayo postigan waa ma paragraph ba ma image ba ma heading ba ma quote ba ma list ba hadan calaamada plus iyo waxyaabahan oo dhan ay soo baxay. marka hadan sawir u baahanahay image baan ku dhufan hadan paragraph u baahanahay paragraph baan ku qoran hadan heading u baahanahay heading baan ku qoran. aniga hadda maadaama aan heading haysto oo aan title haysto uma baahna marka inaan mar labaad aan heading soo geliyo. marka insha Allah saaxib waxaan ku tusayaa bal qaabka waxa waaye aad postiga u soo gelin lahayd. marka waxaa jiro postiga inoo diyaarsanaa ayaan noo soo gelin doonaa. marka xaggan ayaan tagayaa oo ah waxa waaye qaybtan maxaa la dhahayay wordka oo aan postiga ku diyaarsaday. marka waxaan u baahanahay maanta inaan soo geliyo hordhaca ku saabsan computerka ama introduction to computer. marka waxaan u baahanahay hordhacaas inaan ka hadlo hordhacan ayaan u baahanahay saaxibayaal marka inaan maanta waxa waaye aan geliyo introduction to computer saa u jeedin marka waa hordhac ku saabsan computerka. marka muuqaalkan postigan ayaa rabaa maanta inaan geliyo bal qaabkan u gelinaha fiirso xaggan sida u jeedo hadaan meesheen hore ku laabto xaggan add title baa qoran title waxaan gelinayaa hordhaca koowaad iyo waxa rabaa inaan ka hadlo. hordhacana koowaad muxuu noqonayaa marka saaxibayaal wuxuu noqonayaa introduction to computer ayuu noqonayaa hordhacani koowaad. intaas ayaan soo koobiyeynayaa kadib waxaan imaanayaa meesheedii add title meesha ku qoranta ayaan waxa waaye best ku siinaya sida u jeed marka maxaa la dhahayay heading-ka koowaad oo ah hordhaci koowaad waan qortay. marka qaybtan type to choose ay ku qoran tahay haddii aad u baahan tahay inaad hordhac kala soo geshitid calaamadii plus aan hadda ku soo taabanaysaa haddaadan u baahnayn waata calaamadii plus haddaadan u baahnayn qoraalkaaga ayaad soo koobiyeynaysaa in kadib sida ayaad u soo gelinaysaa. marka qoraalkayga ayaan soo koobinayaa inta ayaan hadda soo koobiyeen saa u jeedid waan koobi gareeyay
kadib inta ayaan ku sii deyn saa u jeed marka introduction to computer watas sidoo kale computer and information system are the tools that allow you to transform data efficiently xaga u jeeda marka hordhaca markaan ka soo hadlo oo introduction to computer ah ama hordhaca computerka ah computerka wuxuu yahay qeexitaankiisa ee sharaxaad ah ayaan xagan dhigayaa marka inta markaan qorto kadib haddaan u baahanahay saaxib yaal marka haddaan u baahan hadda waxaan soo gelin rabaa primary definition oo ah subcategory ama mawduuca labaad markaan u baahanahay inaan soo geliyo waa soo copy gareystay kadib xagaan ku laaban kadib calaamada plus sa u jeedin add block days aan ku dhufan kadib waxaan ku dhufanayaa marka heading baan u baahanahay sooma heading kan u baahanahay wixii aan soo copy ayaan paste ku siinayaa maxaa ku qoran primary definition waa qaybta labaad asna isla hordhici ah saa u jeedin marka heading 2 baan ka dhigayaa heading 1 buu ahaa heading 2 baan ka dhigayaa marka hadda muxuu noqday heading 1 buu noqday sorry heading 1 waa kan kore kana waa isla heading 2 gi ayaan dhex gelinayaa marka saa u jeedid waa primary definition marka xagaas soo saaxib yaal haddaan enter dhaho enter markaan ku dhufto kadib haddana waxaan u baahanahay qoraalkeena kale inaan soo koobiyo waan baxayaa qoraalkii kale ayaan soo koobiyeysan qoraalkii kale ayaan koobi soo dhahayaa intaan oo dhan hadda waxa waaye waxay hoos imaanayaan maxaa dhahayay primary definition ka hoos imaanayaan soo koobi garay xagan imaw kadib meeshaan ay ku qoran tahay ayaan paste ku leeyahay saa u jeed marka waa kuwan qoraalkii waan soo koobiyeystay oo waxa waaye qoraalkii saas ayuu marayaa marka saa u jeed waa soo koobiyeystay waxaan u baahanahay marka haddaan u baahanahay title kale ama ciwaan kale inaan soo geliyo hoos baan u sii degayaa hadda waxaan u jeedin marka waatana what's computer ba xagan ku tahay what's computer marka waxaan noqonaysaa ayadana waa ciwaan caadi ah oo heading ah waan soo koobiyeysan kadib xagan ayaan imaanayaa xaga marka imaado markaan click si calaamada plus way soo baxaysaa plus ayaan ku dhufan kadib waxaan leeyahay marka heading maxaa waaye marka what's computer on copyist waan ka sii daynayaa marka hoos baan koobigi waan tagi xagi ayaan ku soo laaban intaan oo computerka hordhiciisa ka sheekeynayso ama waa maxay computerka ka sheekeynayso ayaan ayadana koobiyeynayaa kadib maxaan siinayaa marka kadib xagaas ayaan siinayaa saa u jeedid waxa waaye best ayaan ku leeyahay marka saa u jeedid hadda what's computer waa haysta sidoo kale sharaxaadiisa waa haysta ka soo soco marka waxaan u baahanahay qoraalka inuu ii bato oo waxa waaye qoraal fara badan inaan soo koobiyeysto ayaan u baahanahay tan ayaan imaanayaa tan waxay noqonaysaa marka ayadana waa heading 2 heading 3 way noqonaysaa waan soo koobiyeysan isla xaggana nimaada plus markaan dhaho oo ku dhufan heading baan dhihi heading kan kasii dooran waa headingkee marka xagga markaan kasii doorto heading 3 baan dhihi waan koobiyeyn waan kusii deyn marka application of computer xagga markaan dhaho saaxib yaal waxaan soo koobiyeynayaa intaasoo dhan oo applicationka hoos imaado ayaan soo koobiyeynayaa ilaa xaggaas laga gaaro waan control C baan dhihi xaggii baan kusoo laaban waxaan leeyahay marka saa u jeedid markaan xaggan joogo enter ayaan ku dhufanay si hoos ugu daga macnaa kadib control V ayaan leeyahay oo ah copy hadda saa u jeedid marka waa kan ciwaanadii aad bay u qurux badnaadeen what's computer waa ka sii socday primary definition waa ka sii socday introduction to computer marka at least waxa laga baahan yahay markaan post aan dhigayo 500 oo character inuu gaaro 500 waxa waaye postiyada aad dhigaysto waa inay ka badnaadaan marka kadib characteristic of computer kan soo koobiyeen characteristic of computer kan ayaan soo koobiyeenaya xagan ayaan ku soo laabanayaa kadib characteristic maxay noqonaysaa marka ayada heading bay noqonaysaa heading kay noqonaysaa waliba heading 4 bay noqonaysaa h2 meesha ku qortaan ku dhufan 4 baan ka dhigi kadib maxaan leeyahay v baan leeyahay meeshii baan ku laaban waxaan soo koobiyeen marka waxyaabaha hoos imaado oo characteristic dhan ee hoos imaado ilaa iyo xaggaas ayaa ku egtahay saa u jeedid xaggaas ama control C baan dhihi meeshii ayaan ku soo laaban waxaan leeyahay control V marka postigayga intuu marayo inaan ogaado haddaan rabana waan ogaan karaa waxa waaye postiyada aan soo dhigay intay marayaan inaan ogaado haddaan rabo xaggaas waa inaad aad ku soo darsataa baalkaas waa plugin yoast CO alla yoast CO kaas ku soo darso yoast CO ku qor plugin ahaan soo geli kan wuxuu ka caawinayaa marka postigaada qoraalkiisa inta uu marayo waxyaabahaas oo dhan inuu kuu sheego hadda u jeed marka bal aan qiimeeyo introduction to computer saas u soo bixi doonaa July 3keeda maanta la soo dhigay haye hoos soo soco saa u jeed marka CO analyst xaggaas ku qoran ayaan ku dhufanayaa marka CO analyst marka saa u jeedid waxa waaye qoraalkii hadda saa u jeedid aan hoos soo soco hoos soo bax wuxuu ku leeyahay
waa good result si fiican aan u diyaariyay haye text length ma qomaraya text contains 822 word good job baa la soo qoray maxaa loo baahnaa kaliya 500 baa loo baahan aniga miqaan qoray 822 word baan qoray ka dhigan tahay marka oo waxa waaye hadda si fiican ayuu u socdaa oo waxa waaye postiga waa dhigi karaa bay ka dhigan tahay marka intaas markaan iska fiiriyo aan ku xasuusay blogging-ga waxa la dhahaa SEO wala SEO yes wuxuu ku xasuusinayaa waxa waaye wuxuu ku sheegayaa saaxiibayaal inta aad qortay 822 eray baan qoray sidoo kale good job buu isoo qoray iyo text contain qoraalka wuxuu ku kooban yahay 822 eray good job SEO title-ka maxaa waaye good job marka wax walba hadda waa dhameystirin oo way fiican yihiin bay ka dhigan tahay xagga markaa joogo saaxiibayaal xagga markaan joogo waxaan u baahanahay marka introduction to computer kan in waxa waaye aan u sameeyo sawir kore ayaan u sameeynayaa waxaan ku dhufanayaa meeshaas setting meesha ku qoran tahay ayaan click siinayaa kadib waxaan ku dhufanayaa saaxiibayaal xaggaas post ay ku qoran tahay post meeshaas ku qoran ayaan ku dhufanayaa kadib marka saaxiibayaal hoos ayaan u soo degayaa waxaan imaanayaa meeshaas ku qoran tahay featured image xaggaas ayaan furayaa featured image ku qoran tahay xagga waxa ku sii qoran set featured image xaggaas ayaan click siinayaa kadib waxaan dhahayaa marka media library xaggaas waa sawirka kore oo waxa waaye postiga full lahaa inaan soo gashto ayaan u baahanahay markaan xagga joogo saaxiibayaal xaggaas waxaan ku dhufanayaa upload ay ku qoran tahay upload ayaan ku dhufanayaa kadib select file ayaan ku sii dhufanayaa kadib marka midaan diyaarsaday ayaa jira oo introduction to computer ku qoran tahay open ayaan leeyahay saa u jeedid uu soo galayaa oo open ayaan ku dhuftay waa ka uu buuxsamay saa u jeedid uu soo galayaa markuu buuxsamo marka xaggan set buu ku dhufan waa ka marka set hadaan ku dhufto uu soo galay bay ka dhigan tahay waa kaas introduction to computer set featured image baan dhihi marka set markaan dhaho waxa waaye already sawirkii waxa waaye xaggan ayuu soo fulay waa kan introduction to computer ay ku qoran tahay waa sawirka kore ee featured photograph dhahay ee fuula doono waxa waaye qoraalkii aan diyaarsaday kadib waxaan ku dhufanayaa saaxiibayaal xaggan ay ku qoran tahay publish baan ku dhuftay publish baan dhahayaa marka qoraalkii ayaan rabaa inaan dhigo marka postiga ayaan view post meesha ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa marka waxa la geeynayaa waxay tahay website-kayga ayaa la geynayaa iyo qoraalkii aan soo dhigay sida u jeedin qoraalkii aan soo dhigay waa ka uu soo fulay saa u jeedin waa ka uu soo fulay waa introduction to computer sawirkaas saa u jeedin waxa waaye waa sawirkii aan diyaarsaday waaye kadib maxaan dhahayaa saaxiibayaal xaggan tag marka qaabkaas ayaa loo soo geliyaa haddii aan rabo meesha inaan ku laabto marka cabdinuux xuseen waa taas visit site ayaan ku dhufanayaa oo site-kayga booqa ah marka saa u jeedid sawirkii hadda soo gelinayay waa soo geliyay oo dul fulay sidoo kale postigii waxa waaye waa soo dhigtay marka waan rajaynayaa inaa intaas wax badan ka fahantay marka saa u jeedid waa kanaha introduction to computer saa u jeedid waa kuwan sawirkii aan saartay waa kanaha hadduu soo baxayaa introduction to computer uu soo baxayaa saa u jeedid sawirkaas ayaan saaray haddaan sawirkan click ku siiyo marka qoraalkii aan qorayay ayuu ii gudbinayaa marka waa kana haddaan click siiyo wuxuu ii gudbinayaa waa maxay marka waa qoraalkii aan qorayay ee postiga aan soo diyaariyay ayuu ii gudbinayaa marka waa kana marka gudaha ayuu ii keenay sidaas waxa waaye sidaas ayaa loo akhrisan doonaa oo qofkii rabo qaabkaas ayuu heli doonaa marka insha Allah saaxiibayaal waa rajaynayaa inaan wax badan muuqaal ka faa'iiday haddii aad rabtid mowduuc gaar ah inaan muuqaal ka soo diyaariyo commentiga igu reeb sidoo kale saaxiib aan ku xasuusiyo haddii aad muuqaalka wax uun ka faa'iiday channelka subscribe-kaad wax badan bay iga caawinaysaa saaxiib sidoo kale muuqaalka ilaa garay aad iyo aad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh